xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiye ayaa maanta xaflad u qabtay xubnaha garabka haweenka iyo siyaasiyiin ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal kuwaas oo ku soo digarogtay xisbiga kulmiye habmaamuuska munaasabadani lagu soo dhaweynayay taageerayaasha ka soo baxay xisbiga wadani waxa soo qaban qaabisay marwada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Marwo Raxme Xaaji Maxamed Suldaan xafladan waxa ka soo qayb galay marti sharaf aad u tiro badan oo horkacayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye siyaasi Axmed Muumin Said wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama hoggaanka dhaqanka haween dhalinyaro iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta gudoomiyaasha garabyada kala duwan ee xisbiga kulmiye oo furitaankii munaasabadani ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan taageerayaasha maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye kana soo baxay xisbiga wadani maantana waxaynu soo dhaweynaynaa garabyadiisii iyo howlwadeenadii xisbiga ee heer gobol xisbiga wadani marka saasay gobolka uga dhamatay aynu ku soo dhaweynayno haween iyo niman iyo rag mug iyo miisaan kule gobolka Awdal oo ka soo digarogtay xisbiga wadani xafladaas taageerayaasha ee ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyaguna madashani ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay ku biireen xisbiga kulmiye xana hadaladoodii kamid ahaa xisbiga wadani waxana u soo digarogtay oo nabiyadaydu iyo aaminadaydu iyo xoogaygi badiyay xisbiga talada haya markii ugu horeysay in calan kulmiye gacanta ku qabto dumarka quruxda badan la xisbiga ugu soo ugu nimid ablaha sharafta badan leh sida fiican u soo dhaweeyay waxaan salaamayaa marwada oo maxaa ku dhaayay Raxma oo iyadoo si fiican maxaa ku bariyaan baqalan qaabida noola waday inaan anagu noqono kuwii ugu horeeyay iyo kuwii ugu dambeeyay baqan gudaaqaad badan oo maxaa ku waxay taageerayaasheedu u taayeen miisaanka ku ahaa gobolkan Awdal يعني دمانتو سيوسا ولا ديران تسبين دمانتو يعني كم هرسو وحمان طلعت تلعبه عم ضيار ومحي إن عم مكر يدي يا ميزان كيدي يا مرق يدي يا مسكح يدي بيسوق بينه حسب ذا كلية سري عم هكا وجوه عم كم بس القابل هي hadday tahay garabkii haweenka iyo hadday tahay gudoomiye ku-xigeenkii iyo gudoomiyeyaashii kale ee xisbiga oo ku soo biiraya xisbul xaakimka kulmiye dowlad saxaafadda ka caratee dowlad warbaahinta urursato anigu waa ii kow marka sidaa daraaddeed cid kastoo warbaahinta jecel ayaa ku soo biiraya taas waa kow waa talabaad waxa weeye xisbigan waxaan dowriya 20 sanadood ka shaqeynay waxay sida reer Awdal ama reer Turkiga ku soo dabaali lahaa inay Soomaaliland yihiin oo meesha uga saari lahaa waa la haystaa iyo waa la gumaystaa Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar Suldaan Axmed Suldaan Cilmi Roobla Furre Cuqaal iyo salaadiin kale maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama iyo xubno siyaasiyiin ah oo iyagu ka hadlay hadalka iska daba qaatay ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan taageerayaasha maanta ka soo baxay waxaan ogahay inay yihiin haldoorkii haweenka gobolka Awdal waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada haddaan dhaqankii nahay waan idin soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye idin soo biirtay hambalyaan leenahay halkaa ka sii wada hadal badan umaanaan kicin inaanu hambalyeeno inaad soo dhawaatiin annaguna waxaan leenahay halkaa ka sii wada aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aniga oo ay maanta farxad ii tahay ninka halkaan lagu xumeeyey wuxuu ahaa Axmed Muumin Said waa inanka aan u ahay abtiga anoo waqtiya aad iyo aad bay farxad iigu tahay in maanta aan soo dhaweyntiisa kana hadla kala qayb galay waxaan leeyahay
واحد دمية إبراهيم جامع سبطر ويكسر برماية وكمية قبل كان أول لماتي وكمية وحكم مقال ما قبل أروح هرت الشخص يعني هاي وعليه هلا منو قبل كان أول هلا مو عاملين إنه يحس معاك أحمد وحوها مرتي أورانيكي هلا سعودي حديث حسبه أو سلوكه كبحي ولا سلوكني هل كوسو يقولون أن قرر عصناي هاتوا بلن إذا كابتك عنونا هاي قورورننا هي كورورنا أحمد سمو مسد واني بلارن واني سومالي لنا واني دافع عنك واني وحقبت بدل صومري واني هالكذا صومري maanta ka soo digalugto culus miisaan kale xisbiga wadani soo dhawaado ma leeyahay rag iyo dumar aan kala hadin ee miisaan kale ku soo dhawaado ma leeyahay haweenayda gobolka waan inihanaynaa waan inahabalyeynaa waan in garab taaganahay inaad naga horeysaan mooyaane naga dambayn maysaan maanta idinkoo calulfayoobi mustambeed ma jiro mas meel ku dhuutaa ma jiro qabiil ma jiro laangaab ma jiro laandheere ma jiro kulli waa kulmiye يشربوا هذه البلدان صوغا تفضل عنا وعبا كلمية داني قراها دحين إذا قرت هذه أيها كساعدية لأن وحوي هذه الله مثلا بعد ما أنا كنا واحد قاصرني إنا محيه دون صحنا كذا asiga mayalka adag ee Axmed Muumin Seed oo isagoo halkaasi ka hadlaya wuxuu ka soo jeediyay khudbadaad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysa waxana uu fariin u diray siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani intii ba tahay musharax madaxweynaha socotay kulmiye muxuu qasiraya waxa ku gaaray inaanan kursi aana distoorka Soomaaliland ku qorayn ama shuruuc hoosaadka xisbiyada ku qorayn inaanu Soomaaliland sharci darro horseed waxa ku gaaray masayrkaygii iyo taageerayaashayda iyo awoodaydii dhaqaale iyo tii karteeda Ilaahay siiyayba inaan ku dhiso Musabbix Cabdi Anoona wax shuruud ku xidhay waayo waxa aad u muhiim ah inaynu dhowrno shuruucda qaranka inaynu dhowrno xisbiyada inaynu dhowrno inaynu distoorkana ilaasano oo haddii maanta aniga Muuse ay magacaabo hogaamiye kulmiye xaquuq distoorka kulmiye kaga qoriya maxaaroosada xisbiyada kuma qorno oo waraabowtaagu marka intaan waraabowtaag noqon lahaa waxaan ka door biday inaan abaalkayga dib u dhigto Musabbixi soo saaro ugu dambeyntii munaasabadani waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Musabbixi Cabdi waxana uu sheegay wax qabadka xisbiga kulmiye sidoo kalena waxa uu bulshada ugu baaqay inay guud ahaanba taageeradooda la garab istaagaan xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ku soo wareejiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa soo dhaweynaynaa حتى لقد بلعبنا واحد كمدين حزب الكلمية وإلا حق حقوقه أحمد دريع التري ريا تيفي مقالة بورما